بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد موضوع كصاب السنة الشخصية الإسلامية وعن سكدة يدونا سكوبا إن وحوقت المامو أرأينا الشخصية الإسلامية كلمة الشخص عصر كان دبوا مصطلح كمدا من مصطلحات علم نفس وأرى كمدا يريضا استعمالان قلد علم نفس جاهي يا علماء تربية با أففكو دا مركا لأيغو شخصية دا ما بيرسوناليتي وحيد هدان ayraadaan asalkeedu wuxuu ka yimid kelmad Greek oo persona la yiraahdo ama personere waxay lahaan jireen cayaaro Greek oo inta qof loo soo xidho qinaac ama wajigiisa la soo qariyo dabeetana laba qof oo wajigoodu qarsoon yahay ay xiwaar wada galaan dood wada sameeyaan kadibna min khilaal waxay soo bandhigeen ama sidii ay u hadleen laga sifeeyo shakhsiyadiisu wuxuu yahay qofka kan personality-giisa markaas la sifeeyo idan waa qof waxa uu yahay loo adeegsanayo in lagu gaadho aan طريق sawt codkiisii iyo wuxuu ka hadlayay fikradiisii markii la dhageystay la yiraahdo qofkani waa qof muwasafaadka caynka leh ama waa hebel ama waa sida luqada carabiga waa cagsigeeda shakhsiga af carabiga الشخص wax kasto mututulo taagan shakhs insaan marka tiraahdo waa humaaga muuqda marka tiraahdo shakhsi ba halka ka muuqda yaani waa humaag qof ba muuqda aan loo kala garanayn rag iyo dumar iyo wuxuu yahay toona marka waa jismiga waxay luqada carabiyana xaasatul basar bay adeegsataa marka ay shakhsiga tilmaamayso علم النفس كمصطلح شخصية إسلامية وحلا يراهدا أما الشخصية سيدة ده واحد كسفيان وحويان وصفاتك iyo khasaa'iska iyo simaadka ama tilmaamaha iyo astaamaha oo qof kasto oo binaadam gaar ku yahay ama ha noqoto kuwa aqliya ama ha noqoto kuwa jireed ama ha noqoto kuwa nafsiya psychological ama ha noqoto يعني مواهبتي قدراتك إلهي سيئي وحا قفك صوعة أي كتل ماما و personality أما شخصية ديس قفك مركا إلهان له شخصية قوية بولي يعني personality حوقن بولي وقف يعني صفات قوية وطه مركا إنه الشخصية الإسلامية فإنه رنكرنا وقفك الربي والربي أما تنزيلك وحيجي حق الرب كسر دقي قفك لو تربية أي صارتي أي الله رنك روا الشخصية دي إسلام كلون نسبية شخصية المسلم أو الشخصية الإسلامية أرى كان كأجد دوبة شرة وضدك برا استعمالان وحيو يقانين الهوية من هو ضمير كي يكتمي أو من الهوى يكتمي أي مال إليه هويته luqada gaalada kalena waa waxay ku tilmaamaan identity Soomaaliga muxuu noqonayaa aqoonsi ama baadisooc wax qofka cidda kale laga garto dil lagu weydiiyo aqoonsigaaga keen waa yaani waa wixii sheegayay magacaagii daadaadii meesha aad degantay qofka tahay si lagaaga sooco dadka kale aad magaalada wada degantiin idan waa aqoonsi waa identity-ga muslimka ah waxa ka soocan qofka muslimka qofka kale idan binaadamku cid waliba personality ama identity bay leedahay shakhsiyya ama huwiyya haduu yahay qofku Christian shakhsiyad buu leeyahay haduu cilmaani yahay shakhsiyad buu leeyahay haduu shuuciyay identity personality buu leeyahay ama identity u gaar buu leeyahay taa macnaheedu wax weeyaan qofka binaadamka ah waxa uu rumaysan yahay iyo dhaqanka ka ratibma ee afkaar leh thaqafaad leh sulukaat leh cibaadaat leh wax walba leh ayaa waxa ay tilmaamaan qofkaasi identity-ga uu leeyahay هويده uu wato
alhawiya walhuwiya waxaa tidhaahdaba ku wato ama waxa ay tilmaamayaan personality-ga qofka bay xadidayaan. sidaa awgeed shaksiyada islaamiga waxaynu leenahay waa shaksiya aan fitradeedii la nasakhin, abuurkii ilaahay ku abuuray subxaana wa tacaala iyo toosnaanta fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illaah. waa shaksiya aan maskhin, dooritaan ku dhicin, aan doorsoomin, hayirmin, u qumanoo u toosan sidii rabbi u doortay. umamka markaa waxa lagu kala soocaa waa caqaa'ida iyo wixii ka ratibma. umamka laguna kala sooco inta badan technology-ga iyo waxa ay haystaan ee lacaga ama maadiyada laguma kala sooco. umamka waxa lagu kala soocaa waxa ay rumaysan yihiin iyo sida ay u fakerayaan iyo qaab nololeedkeeda lagu kala soocaa. ummad kastaaba markaa ka umma waxay leedahay shakhsiyad ama huwiya ay ilaashato oo ay ku faanto ka tirsanaanteeda, oo ay hiil iyo hooba siiso, oo wixii la cola ay la col tahay, wixii la jirana ay la jirto, oo xadida qaabka ay u fakerayso iyo dhaqankeeda iyo aragtideeda iyo waxa uu rabto oo dhan. huwiyadu markaa ama personality-gu qofka wuxuu siiyaa athabaat walistiqraar walwaxda. qof jiro oo sugan oo la garanayo calaamaad iyo wax lagu garta leh, qof aan mutalawin ahayn, qof aan duu wajhayn, qof aan wejiyo badnayn, qof aan munaafiq ahayn. shaksiyada qofkee rasmigii waxa weeyaan waa wax haabita oo qofkan cidda kale ka socda. marka sifaadkaasi la arkay inuu hebel yahay la garanayo, uu ka socmayo cid kale oo aanu ku qaldamaynin, maaha imaca wax maalinba meeshuu joogo u eg, biicadu la nooliyey la midaba ama la rinjiya ama la dhaqana maaha. hadduu shaksigu caynkaa yahay, bulshaduna waa ashkhaas isu tagtay. huwiyada bulsho waxa abuuraa markaa waxa weeyaan waa identity-ga ay lahayd baa waxa weeyaan almaada allaasiqa isku dhadhajisa labanaadka bulshadu ay ka koobantahy. gurigu jaajuur buu ka dhisan yahay soo maaha, buluketiga waxbaa isku haya, isma qabto buluketigu. haddii dhagxantaasuu la mid noqon lahaa meesha iska daadsan, laakiin waxbaa la isugu dhadhajiyo isku haya. huwiyada bini aadamka bulshadana isku haysa. bulshada huwiyadeedu luntaa waxay noqotaa bulsho kala daadsan, oo aan afkaar ahaan wada socon, oo aan dhaqan ahaan wada socon, oo aan tayo ahaan wada socon, aan xoog ahaan wada socon, oo aan jiritaan lahayn. walidaalika baa ilaahay ummadda muslimka wuxuu tilmaamaya ana haadihi ummatukum ummatan waaxida. maxaa waxdada ka dhigay? huwiya waaxida bay leeyihin, wax mideeyo isku dhajiyey bay leeyihin oo ka dhigay inay umma waaxida noqdaan. ummadda muslimkaa markaynu idhahno shakhsiya alislaamiya, shaksiyada muslimkaahi waa shaksiyad uu qaabeeyey intimaaga uu la leeyahay ama ku tiirsanida uu ku tiirsan yahay diintii ugu dhammaystirnayd, oo ah inuu ku tiirsan yahay kitaabkii ugu sharaf badnaa ee lagu soo dejiyey rasuulkii ugu mudnaa ee loo soo diray ummaddii ugu mudnayd. kitaabkaasoo lagu soo dejiyey buqcada dunida ugu mudan oo maka ah, bishii ugu mudnayd oo ramadaan ah, habeenka ugu mudan oo laylatulqadriya. waxaasoo dhammo ikhtiyaaraati waxay tilmaamayaan shakhsiyadan uu qur-aankani samaynayo ihtimaamka la siiyey, iyo inay mid rabbaaniya tahay oo rabbigeed u nisbo sheegata. walidaalika ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ina farayaa inay waxaynu ku faano noqoto shakhsiyadaas. waman axsanu qawla miman dacaa ilى اllahi wacamila صaalixا waqaala inanii min almuslimiin. yaa ka war fiican baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala, yaa ka war fiican qof ilaahay dadka ugu yeedhay oo isna camal suuban samaynaya oo sheeganaya inuu yahay muslim baanahay ku faanaya. waa huwiya uu tilmaamanayo oo faan mudan oo rabbigii u tilmaamayo inaan cid ka qowl fiicani jirin. ninkaasi ku ammaanane leh inanii min almuslimiin sheeganaya. ilaahay baa inoo ammaanaya, wuxuu leeyahy waman axsanu diina miman aslama wajhahu lilahi wahuwa muxsin waاtabaca milata ibraahiima xaniifa.
yaa ka diin fiican baa ilaahay leeyahy yaa ka dhaqan fiican yaa ka dadnimo fiican ku rabbigii u hoggaansamay isagoo muxsin oo mutabic oo raacaya wixii rususha loo soo dhiibay ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahy sibغaة allah waman axsanu min allahi sibغaة wanaxnu lahu caabiduun sibغaة allah baa la yidhi waxaa dhici jirtay yahuudda iyo kristanka iyo waxay samayn jireen waxaa la yidhahdaa tacmiid adoog qofku markuu dhashaa loo keenaa dabeetana biyaa la dhex geliya loogu maydhmaydhaa wadaadka wax ku tufa marka yani waxa weeyaan huwiyadii baa la siiyey yahuudinimadii ama nasraaninimadii ama kiisaa la siiyey kaasaa tasbiiqa la yidhaha sibqadu waa kaa ilaahay wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala sibqaة allahi baa ilaahay yidhi waxa alla walwalaaqayo kale waxba kama jiraane waa maxay muslimiinta waxaa la leeyahay sabaqana allahu sibqaة allah ilaahay rinjigii sibqadu asalku waa rinji waa qof ilaahay midabeeyey oo ka soocay basharka intiisa kale oo maxaa loo soocay ilaahay subxaanaه wa tacaala waman axsanu min allahi sibqa wanaxnu lahu caabiduun ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa qofka mu'minkee la tilmaamayo inuu yahay qof u nisbo sheegta alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum اlislaama diinan dhaqan iyo diintu rabbi ka raali noqday waa qof nisbo sheeganaya waa qof ka tirsan bulsho ilaahay ku tilmaamayo basharka inay ugu sarrayso kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas baa ilaahay yidhi waxaad tihiin maxay khayru umma ukhrijat linnaas dad kuwii u fiicnaa u khayr badnaa ee dadka loo soo saara baa ilaahay leeyahy xayثiyada khayriyadoodu waa maxay تأmuruuna bالmacruufi وتنhawna can الmunkari وتؤminuuna biالlah khayriyadan iyo ammaantan aa leediin waxa weeyaan inaad rabbina rumaysan tihiin xumahana reebtaan samahana isfartaan tilmaamtaasi baa waxay idinka dhigtay inaad noqotaan maxay khayru umma shaksiyada muslimkii waa shaksiya mutamayiza ka soocan kuwa kale ilahay wuxuu rasuulkiisa ku leeyahy waxaad tidhahdaa qul haadihi sabiilii adcuu ilى اllahi calىa basiira ana wman itabacanii wasubxaana اllahi wma ana min almushrikiin waxaad tidhahdaa baa ilaahay yidhi kani waa jidkaygii isagaan ugu yeedhaya dadka calaa basiira aniga iyo kuwa i raacayba mana nihin kamana mid nihin maxay mushrikiinta kama mid nihin mutamayiziin can ahli shirki baanu nahy dad ka soocan oo ka muuqda kuwa shirkiga oo dhan ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa qofka muslimkaa shaksiyadiisu inay tahay noloshiisao dhan inuu rabbigii kala kulmo waa qof guidancekiisa ka qaata maxay hagihiisa yaa haga rabu الsamaawaati wاlard alcaliim اlxakiim اlkhabiir duljalaali wاlikraam ilaaha cilmiga badan ee khibradda badan ee aqoonta badan ee khaaliqa ah ayaa isaga hago hoggaanka u haya basharka hagaya ka warran waa indhoole hagaya nin indhalay hadduu ninka loo indhala usha u dhiibto ka warranay laakiin rabu الsamaawaati ninka uu hagayo waa inuu ku faana waa shaksiya mutamayiza walidalik baa ilaahay wuxuu nabigiisii ku leeyay calayh الsalaaةu wasalaam qul ina صalaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilahi rabi اlcaalamiin laa shariika lah wbidalika umirtu waana أwal اlmuslimiin ilaahay nabigiisii moxameda calayh الsalaaةu wasalaam wuxuu ku leeyahy waxaad tidhahdaa ina صalaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilahi rabi اlcaalamiin cibaadadayda gowracayga noloshayda geeridayda yani nolosha dhammaanteed baa ilaahay bay aniga u sugantay one way baan haystaa highway baan saaranay ariiq toosan aariiq اlmustaqiim highwaygu soo ariiq mustaqiima maa jid toosan baan saarnahay dheh oo rabbulcaalamiinka xaggiisa ku socda cidna ugu shariik yeeli maayo waana lay faray inaan sidaa u toosnaado waana awal اlmuslimiin ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu tilmaamaya shaksiyada muslimkii markaasi inay ka soocnaato waxa kale dunida ka jiro o dhan lakum diinakum waliya diin baa ilahay leeyahy subxaanaه wa tacaala waxaad ku tidhaahdaa war diintiina iyo dhaqankiina iyo midabkiina iyo araggiinaa leediin dadnimadiina iyo personalitigiinaa leediin identitygiina iyo huwiyadiinaa leediin gaarka ah annaguna maxay waliya diin leh
أنا كيغان تاغنحي إلهي وحينو تلماما يا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي وحا ويديستان إنو جدك توصن إدنكو هنونيو جدك توصن إلا تلماما يا وجد معالم له وجد دد أي هقاميان بشر كم مضاني ولذلك ما وحل لي واحد ترى إله واحد نوهن ونسامحي صراط الذين أنعمت عليهم وجد هل يجار له كوي إله وأظن نعمة يسجد كود كوا ربي ونعمة وكوي وأنبياء دي الصالحين تي وحي يجد كقاضي وجد هجيان نوح يا إبراهيم يا موسى عيسى محمد عليه الصلاة والسلام يا يوسف يا يونس يا داود يا سليمان أنبياء الله يقانه oo basharka aad dadku ilaahay ka doortay waa jid kuwaasi qiyaadada u hayaan oo qudwa leh waa jid nujuumtiisa leh xidigihiisa lagu daydo leh walidalik baa ilaahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad tidhaahdaan oo ku ducaysataan ilaahu jidka toosan ugu hanuuni jidkii ay mareen aladiina ancamta calayhim oo naga weeci maxay jidka dadka liita ee gaagaaban jidka wax magaratada waa kuwee صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا أن ويداري جدك كوي أدو عروطي يكوى اللمي كوى الله عروضي يكوى اللمي على كوسده اليهود والنصارى كوى سعلا كوسده ننك كوى سعلا كوغادا كورم وهاوي يكدعي وشخصيا لنطي أنبطي وشخصيا نولاشا كهالمامطي إذن أيها الإخوة shakhsiyada muslimkaahi waa shakhsiyo masdarkeeda ay cizada iyo karaamada iyo dadnimada iyo faanka kala kulantaa uu yahay maxay laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum baa ilahay yidhi waxaan idiin soo dejinnay kitaab uu ku jira maxay dikrukum xuskiinna iyo sharaftidiinna iyo mudnaantiinu afalaa tacqiluun baa ilahay leeyay maydan caqli yeelanaynin caqli maanu idinku jirin يعني waxa lagu faana uu qofka mu'minka ah ama shakhsiyada muslimka ay ku faanta waxa weeyaan inuu haysto kitaab min rabbil alamin kayimi ma haynu dimuqraadi yahay inuu aragti kala wata iyo philosophy reer galbeedka ama philosophy bashar galbeed ya waxba gaar u tilmaami hatta ka hawdka kayimi ku dar philosophy bina aadam oo qof daba socda ma aha ee wuxuu daba socdaa maxay kitaab rabbi xaqi kayimi رب السماوات والأرض كتاب كيمي إذن waxa uu ku faanaya ama meesha uu karaamada ka deeyay dadnimadu waa maxay walillahi al'izza walirasulihi walilmu'minin walakin almunafiqina la ya'lamun ba ilahi sharafta iyo izzada iyo karaamada rabbi intu siiyay bay u sugantay rabbi subhanahu wa ta'ala intu siiyo inta rumaysay منافقين تستعمل وجب إلهي سبحانه وتعالى كتاب كاسي عقيدة داس أي وحي حددان وحي قابيان موقال كقفك الصدق والنقنية مظاهرت الإنسان محيد هذا أصير معتقدات بيد هذا قفك وحي محبوس فيها بيد هذا أنت وحي الرميسين سوماها waxaad samaynaysaa de waxaad ku qanacsantay wax wanaagsan inuu yahay soo kama maradaad xidhanaysaa waa marad ku rumaysan tahay inay marax ragatay hadaad rumaysan tahay maraf wal xumaa inay tahay meel qaadanaysaa maya yani waxa weeyaan insaanku waxa uu xukuma waxa weeyaan mu'taqadka waxa uu rumaysan yahay ayaa waxay xukumaan madaahirtiisa haday qofka iskhilaafto waxa uu rumaysan yahay madaahirtiisa waa maxay waa qof mutanaaqida وقف اسبورينيا اسبرانبرين ku jirto waa qof aan sugnayn waa qof aan afkaartiisu ama mu'taqadkiisu toosnayn ولذلك النبي وحده عليه الصلاه والسلام حديث امام الطبراني ورينا يا شيخ الألباني حسن كنت الماميه ليس منا من عمل بسنه غيرنا ابو نبي نغما ميدها ككو دقمه دقنka غيرka يا ابو نبي عليه الصلاه والسلام يعني قفك مسلم كاي ما دام هو مسلم يحيى maadaama uu ku faanayo inuu rabbigii ku xidhan yahay maadaama uu ku faanayo halyeeyadu ku dayanaya inuu kuwii rabbi doortay yahay anbiya iyo rasuul ay yihiin hadyigiisa iyo simaadkiisa iyo muuqaalkiisu dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisu
waxa laaliya noloshiisa waxa ka soo baxay oo dhami waa inay noqdaan kuwaasi suuradda ay lahaayeen kuwa leh waa mas'ala musallama haddaad shuuci tahay shuucinimo ku faanaysid mulxid tahay wixii rabbi u sheegta dawa inaad ka faantaa saxiixa maaha ila ma tu'min la billahi wala birasuuli ma rumaysnid maadaama aad rumaysnaa waad ka faanaysaa waxaad ku faanaysaa maxay التنوير العقلي iyo falasafadii waaweyneyd iyo hebel iyo hebel sida yeeleen iyo aragtidoodii iyo haddaad maahmaahayso inaad maahmaahdii liilan keentaa iyo Marcus iyo weerihiisi qofka muuminka ah haddaan war sheegayo quraan iyo xadiis laga waayo waxa la oranayaa kani wadaad maaha saxiixa maaha ilaa waxaan sheegay waxay ahayd in Ilaahay rasuul baacayn kan idin yidhi noqdo haddii Ilaahay rasuul ba warkooda la iga waayo oo warka liilan aan badiyo macnaheedu waxa weeyaan liilan ka qiimo ila leh idan ninka shuuciga ah muuqaalkiisa iyo madharkiisa iyo mantaqiisa iyo aragtidiisa iyo hadalkiisa waa in shuucinimo ka muuqata ninka cilmaaniga ah cilmaaniga waa laadiini waa secularism waa qof aaminsan maxay noloshu inay tan adduunyo u tahay wax ka dambeeyana aanu jirin waa inay dadkii afkaarta hogaaminayay weedhahooda iyo halkudhagooda iyo waxooda waa inuu iga muuqdaa dhaqankooda iyo simadooda waa inuu iga muuqdaa haddaan liberalism aaminsanay maalan liberal haddaan ahay liberalismku waa caqiido mabda'an xorriyaadka tirada badan ka warrama waa caqiidada haddaan rumaysnahay waa in dhaqankeeda iyo suluukiyaadkeeda uga muuqda waa inaan dadka ugu yeedhaa alxurriya almutlaqa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiine yimi bulsho diin iyo dhaqan u yimi yahuud baa deganayd soo maaha oo diin iyo dhaqan leh markii dambe nebigu wuxuu ku dadaalay muslimka inuu yahuudiga ka sooco xadiidkii saxiixu muslimka oo ka tilmaamaya yahuudi waxay rumaysnayd gabadhu markay caadada hesho inaan gurigaba lala wadaagin cunadana lala cunin laga fogaado deetana quraan baa soo degay maxay sheegaya yasaluunaka can ilmaxiid haye qul huwa aadan faactazilu nisaa fi lmaxiid bale deetana nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam gabadhu markay xaydka leedahay waan loo galmoonaynuuna wixii kale waa lala wadaagaya waan loo galmoonaynuun mooyaane wixii kaleo dhan waxbaa lala cunayaa waa lala joogayaa waa la dhunkanaya waa lala noolaanaya waa xaaskaaga kadib bay yuhuuddii waxay yidhaahdeen xadiisu saxiixu muslim ku yaalla maa yuriidu hada arajula an yadaca min amrina shay-an ilaa khaalafanaa fiihi bayna ninkani maba rabo arrimaha iyaga wax ka mida ilaa iyo inuuna khilaafaa buu doonaya yani nebigu umma mutamayiza buu soo saaraya ummad dhaqan iyo usluub nololeed iyo wax walba ka gedisan walidaalika buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam xadiidku imaamu axmed iyo abu daawuud ba warinayeen sheekh albaanina xasan ku tilmaamaya man tashabbaha biqowmin fahuwa minhu qofka cid isu ekaysiiya suuqa dad xanuunsanayo maan la baa jooga soo maaha dadka xanuunsanaya maxaa lagu yaqaanaa inta badan innaga waddanadeenna inuu raama yeesho oo maryo jeexjeexan xidho oo caynkaasi qaabkaa inuu noqdo soo maaha haddaan intii soo xidho ka waran maxaa odhanaysaa wadaadku waa ku yaro dhuftay soo maaha طabcan haddaan kuwa isu ekaysiyo bulshadaasaan ku biiray weeyaan yani bulshada sidaa u fakeraysa ama qaabkaa u nool baan ku biiray qofku bulshada uu isu ekaysiyaabuu ku biiraa walidaalika baa ummadaha dunida jooga ummad waliba waxay jeceshahay inay yeelato wax ay ku soocanto in marka qofka muuqaalkiisa la arko cidda uu ka tirsan yahay marka muuqaalkiisa la arko madharkiisu inuu sheego maxay waxa uu yahay madharkiisu inuu ka tarjumo ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay waxaad ku tiraahdaa gaalada antum bari'uuna mima a'mal wa ana bari'un mima ta'maluun war dhaqanku waa inoo kala soocan yihiin waxaa samaynaysaan aniguna beri baan ka ahay idinkuna beri baa ka tihin walana acmaaluna walakum acmaalakum qofka mu'minkii marka waa qof madharka ama muuqaalka iyo aragtida iyo mantaqa iyo hadalka iyo dhaqanka iyo akhlaaqda iyo caqiidada iyo nolosha aragtidu ka qabo iyo siyaasadda iyo dhaqanka wax walba ka gadisan ciddii aan mabda'a ku raacsiisnayn waa laga yaabaa bacd aljuز'iyaat الsaqiira bini aadamku inuu isugu yimyimaado
cunno inaynala wada macaanaato innaga iyo yahuud iyo kristanka iyo muslimka waa iska suurtagal yani waa bacd aljuziyaat maaha wax laakiin waxaa astaanta loo yaqaano bini aadamku uu ku kala baxo waa inay noqdaa ummaddu tamyiizkaasi inay leedahay walidalik baa ummad waliba waxay tijaabisaa shakhsiyaadka afraaddeeda sida ay rabto inay u dhisto midabka ay rabto inuu yeesho waxay tijaabisaa ummad waliba inay ummaddeeda u yeesho haliyeeye lagu daydo oo da'yarteeda dambe shakhsiyaddii agtooda ka ahayd shakhsiyadda muuqata ee lagu dayanayo adiga ayaa kuwa markaa shakhsiya almutamayiz ayaa kuwa ah nabiy llaahi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam ilahay qur-aanka muxuu ku leeyahy laqad kaana lakum fii rasuuli اllaahi uswaة xasana liman kana yarju اllaha walyowma alaakhir wadakara allaha kaiira inta badan dadku aayaddan markay istidlaalayaan waxay ka warramaan uun madaahirta iyo sunnayaasha marka aayaddu ma taqaana xaggay ku soo degtay aswatu uxud bay aswatu khandaq bay soo degtay fii suurati alaxzaab bay ku jirta soo maha aswatu khandaq bay ku soo degtay nebi maxamed waxaa laynoo tilmaamaya inaynu kaga dayanno raganimada iyo sabirka iyo gaalaska dhiciska iyo cadowga ilaahay ubabacdhigeeda iyo inaad shaksiya mutamayiza umma jirto kayaankeeda la inay noqoto markaasaa ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala laqad kaana lakum fii rasuuli اllaahi uswatun xasana hadday siyaasatay hadday jihaadtay hadday nololtay hadday waxbarasho wax walba inaad nebi moxamed kaga dayata calayhi الsalaatu wasalaam ayuha اlikhwa dunidu marka maanta yani markaa shaksiga almuslima laga warramo inta badan dadku waxay ka warramaan muqawamaadkeeda simaadkeeda sifaadkeeda laakiin inta aanan kaa tilmaamin oo dhan waxaan rabaa inaanay darasiiyo wuxuu wax fudud inaan ahayne wax muhiimadeeda le u baahan inuu qofku ka feejignaado inay tahay dunidu waxay idhaahdaan waxay ku jirtaa siraaci alhawiyaat caalamku loolan baa ka jira loolanku maaha xabaddan la isku dhufuto xabaddu waa wax fudud xabadda qof lagu dhintaa aakhirun baa loo diray maaha wax weyn maaha xabaddu laakiin dunidu waxay isku wadaa in huwiyada la masaxo aqoonsiga ummadi leeday dadnimada ummadi leeday jiritaankeeda in la masaxo in laguga dhigo inaad ummad kale dayl u noqoto dabadhilif walidalik siraacu lhawiyaadka ummadaha ka dhex taagani waa mid xooggan ummaddii huwiyadeeda iyo shakhsiyadeeda weydaa waxay noqotaa ummad dunida daba socotaa waxba ka ahayn ummad waliba markaa waxay tijaabisaa inay ilaaliso huwiyadaasi inaanay dhimanin markaasaa dhaqan iyo hidde iyo wax la wada raadceeya markaasaa usluubulxayaa la raadceeya markaasaa la raadceeyaa muctaqadaadka iyo ummadda tani waxay ku midoobayso dee basharku maaha dhagxan meel taalla ee waa dad nolol wadaaga nolosha maxay ku wadaagayaan waa inay noqotaa caqaa'id mabaadi afkaar dhaqan hidde taariikh waa inay waxay wadaagayaan ay jirto ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamaya waxaynu inagu wax ku wadaagaynaa inay tahay nebiyullaahi muuse iyo haaruun maxaa lagu yidhi faاstaqiima walaa tattabicaani sabiila sabiila aladiina laa yaclamuun toosnaada baa ilaahay ku yidhi oo ha raacina jidka kuwa wax magaratada baa ilahay ninkii ilaahay garan waaya ma inuu wax garanaya baad u haysataa afaman yaclamu anama unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acma waa indhool indhool hadduu ku hago ka warran daba hadaad usha indhool u dhiibto tidhaahda nawad ciddii rabbigeed garan weyday nolosha waa mutaxayir wuu lunsan yihi waxaa rabbi tilmaamaya marka dadku inay kala socnaadaan oo cid waliba afkaarteeda iyo caqaa'ideeda iyo mabaadi'deeda iyo aragtideeda iyo dadnimadeeda ku socnaato war xataa farxadda lama wadaago nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam madiinuu yimi dabeetana wuxuu arkay reer madiino maalmo dabaal degaya war waa maxay buu yidhi maalmaha kanaad dabaal degaysaa waxay dhaheen waa laba maalmood oo fii jaahiliyatina aanu dabaal degi jirno caynkaasi oo ciid noo ahaa wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qad abdalakum allahu khayra minhuma ilaahay laba ka khayr badan buu idinku bedelay ciid aladxaha iyo ciid alfitriga kuwaa dabaaldega baa la yidhi joojiya kuwa kan
imka waxaad arkaysaa qaar le waa christmaskii waa new yearkii waa maalintii haweenka waa maalintii ka maalmahani xagga ka yimaadeen dadkani maalmahan uu faraxsan yahay tirada badan le ciidda ka badan ilaa xad maalinta farxalka adduunka loo dabaaldegayo waxaan dad baa samaystay muslimku muxuu u dabaaldegaa ilaahay wuxuu inagu yidhi maalmo farax oo gaara baa leediin maalmaha faraxiinu waa maxay waa yowmu fitrikum iyo yowmi اladxa umamku si ay u ilaashadaan waxyaabo badan bay sameeyaan maalan dunida waxaa maqasheen atacliim اlijbaari duwalka la yidhaha way horu mareen 9 sannadood ama 10 sannadood oo waxbarasho oo qasaba baa jira qof walba in la baraa maxaa loo barayaa ma cilmaa cilmi lama barto 9 sannadood ama 10 ilaa dugsi dhexe maxaa la bartaa ma cilma ka soo baxa wax buuran maaha waxa la baraa siday ummadani homogeneous u ahaan lahayd siduu dadka ula noolaan lahaa siduu bulshadiisa uga mid noqon lahaa sida afkaar loo siin lahaa si muctaqadaad loo siin lahaa si uu dadka ula midab noqon lahaa baa la baraa si uu uga soocnaan lahaa umamka kale dadka kale si uu uga soocnaan kari lahaa waxay yidhahdaan umamku xad bay gaadhsiiyeen maalan waddankan yara jabaan la yidhahdo jabaanisku waa ummad neceb dabadda inay u baxaan dhulka kale inay tagaan mana jecla koodana in la yimaado bay yidhaahdaan sabab kaloo dhan maaha bay yidhaahdaane waxay aada u jecel yihiin inay dhaqankooda iyo hiddahooda ilaashadaan marka war haddaynu dadka kale u tagtagno dabaduyaacu inagu bato waa milmaynaa bay leeyihin hadday inagu soo bataan iyaguna wayna milayaan waxaynaan xejinno waxay xejisanayaan ma garanaysaa waa confucius iyo buddhism iyo diinta la ilaalinaya waa noocaas intaasaa si loogu mintidi lahaa loo sameeyey waxyaabo badan oo lagu ilaashado maca iyagoo wixii anfacayay way qaateen technologyga may yidhahdeen aan iska dayno iyo kuwa ayana waxba ka qaadanen maya technologya waxaa waa u hijroodeen tiyuta ninkii sameeyey arday yaroo la diray buu ahaayo jaamacad jarmala loo diray oo jaamacaddii waxbarashada markuu cabaar wadwaday arkay tiyarigan badan ee lagu wadaa inaanay waxba ka suurtagal ahayno intii yareeda uu bariiska u sitay ayuu injiin kaga soo iibsaday meel suuq aho dabeetana wixiisii baa u gaadhi waayo safaaraddu tago warin yaroo kale ay ugu dara buu yidho intii intuu isku biiriyey ayuu injiin yar samaysto dabeetana wuxuu yidhi injiinkaa yaree jarmalku sameeyey haddaad intaad furfurto xabad iyo xabad u dhigto haddana isku wada xidhxidho dib ugu shaqaysiiso ood si fiican u barato berrina gaadhi waad samayn karaysaa buu yidhi injiinkiisi yaraa buu iska watay jaamacaddiina tiyarigeedii buu iska qaadqaadanayay waa ninka tiyutahana maqashaan imika dunida inugu waalay kambanigan dunida wareeriyey arday yaroo jermany loo diray oo jeebkiisa wixii ku jiray injiin yaroo gaboobay intuu ku iibsaday gurigiisa la fadhiistay buu ahaa idan wixii dunida ka anfacaya way soo guuriyeen laakiin waxaan la isku haystay aan la rabin in la guuriyo waaxay waa namat alxayaa iyo muctaqidaadka iyo dadku say u fakerayaan iyo dhaqanka iyo huga iyo waxa la xidhanaya weeyaan ummad waliba waxay isku dayeysay inay waxeedaa ilaashato faransiisku maalan waxaa mamnuuca musطalaxaad terminologyga ajanabiga afka faransiiska ka ah in dacaayadda iyo iclaanaadka brobagandada iyo idhada in lagu soo daro waa mamnuuc qaanuun baa diidan innagana haddaad soo marto suuqeenna board dukaan ku dhaseen ma jiro ilaa iyo waa af ingiriisi soo maaha waxaan la garanay ka rooya modern kada waxaasaa ku wada qoran soo maaha yacni waddan dhammina qaanuun buu ka soo saaray inaanu iclaanaadka waddanka aanu ku soo bixin maxay wax musطalaxaata terminology oo khilaafsan ilaa xad dadka isu kaashiyahooda say u ilaalinayeen bay yidhahdeen xijaabkuna waa mamnuuc gabadh duuduubanna iyana naga daaya way dadkay ka gedisantahay gabadha muslimaddii markay xijaabkeeda xidhato waa maxay haanadaa muslima bay leedahay way kan anigoo muslima sacaynkaa maaha war waan idinka gedisanay weeyaan dee madaahirtaydaa sheegaysa inaanan idinla nooc ahayn qof gaara baan ah waa qof dacwada sidiisa u wata waa qof iyana waxay leeyihin maya nagu wadi maysaan dacwadaasi nagu socon mayso meelaha caamka oo dhan waynaan la arag gabadh mara xijaaban sidataa maca qaanuun alxuriya oo jira qaanuun alxuriya maxaa loogu dabiqi waayo waxay leeyihin haqaafo kale iyo wax kalaa faafaya idan jamaaco kastoo bini aadamka ka midi waxay ilaashanaysaa oo ay rumaysantahy muctaqad baa jira horta bini aadamku cid waliba rumaysan tahay wuxuu haystaa inay dadka ugu sarreeyaan walidalika ilahay qur-aanka muxuu ku yidhi gaalada markii laga warramayo walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni اllah fayasubu اllaha cadwan bigayri cilm
waayo kadalika zayannaa likulli ummatin camalahum ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala kuwa gaaleed waxaanay caabudayaane sanamadooda ha ka caayina baa ilahay yidhi oo haddaa ka caydaan dee iyaga kabaan la weyn iyaguna markaa waxay caayayaan maxay ilaahay bay caayayaan baa la yidhi markaa qofkan dhagixiisa yarow isagoo amaamutay baa la weyn dhagixiisa u daayo ha ka caayina baa la yidhi dhagixiisu inuu baatil iyo sheeg laakiin caytanku waa masale kale ha ka caayina baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala ilahay wuxuu leeyay kadalik zayannaa likulli ummatin camalahum qolo walba waxooda loo qurxiyo la qurux badan maadaama wixiisu la qurux badan yahay waa inuu ku diriraa wixiisa inaan laga bedelin in la qanciyo mooyaane waa inuu ku diriraa inaan laga bedelin ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala marka qolo waliba waxay rabtaa qofka arka inaad afkaartiisa usoo yaro dhowaatay ama xataa maryihiisa soo yaro xidhatay saaxiibbu kula noqonaya wain kaaduu layaftinuunaka can aladii awxaynaa ilayk ilahay wuxuu yidhi bal akhriya aayadda litaftariya calayna hayra waidan latakhaduuka khaliila ilahay wuxuu leey waxay ku dhowaaday wixii aanu ku waxyoonay wax ka mida inay kaa weeciyaan qayb inaad iyaga ka qaadato haddaad qayb iyaga ka qaadato maxaa dhici lahaa baa ilaahay leeyay latakhaduuka khaliila saaxiib bay kaa dhigan lahaayeen baa ilaahay leeyay bini aadamku wuxuu jecelaya inuu isu ekaado gaalka iminka intuu idin yimaado shaar iyo macawis xidhee hilibgeelka cuna waxay soodhanaysaa kan isku yaro qolaatii saaxiga maaha waayo wixii aa haysateen iyo markuu soo dhexgalgalo waxaad tileedahay warkani wuu ka soo dhodhow yahay mala kuwa kale bini aadamku waa iska caynka ciddaa cid madaahirteeda iyo muuqaaladeeda iyo dhaqankeeda iyo afkaarteeda ku dhawaata saaxiib bay ka dhigataa way soo dhawaysataa waxay moodaysaa inuu koox isaga la yahay walidalik baa ilahay wuxuu qur-aan ku tilmaamaya walan tardaa canka alyahuudu wala الnasaara xataa tattabica milatahum rida raalli ahaanshiyu goormu imanayaa baa ilahay leeyahy markaad la mid noqotaan ama diversitygay sheegaan ma ogol yihin inagoo kala nooca inaynu wada noolaano inta masaalixdu jirto laakiin raalli ma kaa yahay may waa ku riixaya oo isku dayaya inuu safkiisa kugu daro oo isku dayaya waaxid siduu u fakero siduu u arko wax walba inuu ka mid noqoto wuxuun baa rida kaamila la gaadhi karaa qofku markuu kula mid noqdo saaxiibkaagaad ugu jeceshay waa kee waa saaxiibkaaga isku wada dareemada tiinde ninka asxaabtaada mid baa jira aad ka sii jeceshahay asxaabta kale sababta waa maxay waa ninka wax walba kula wadaaga isku dhadhanka wax walba ka tihin adigoo inta kaleba la saaxiibi karin waa kuu sii gaar bini aadamku rida alkaamil waxa la gaadhaa marka uu qofka aad wax waloo kasoo fulaya baad ku qanacdo caqiidadiisa dhaqankiisa akhlaaqdiisa hadalkiisa aragtidiisa sheekadiisa gacantiisa cunadiisa wixii soo dhamay markay ku raalli geliyaan rida kaamila baad gaadhaysaa yaa wixii soo dhameeyeyna raalli geliyaan dee nebi maxamedun calayhi salaatu wasalaam basharka inta kale akhtaa buu iska leeyahy walidalik baa ilaahay wuxuu leeyahy waddu low takfuruuna kama kafaruu fatakuunuuna maxay sawaa'an sideedaba markaa dunidu maanta dagaal bay ku jirtaa dagaalka kama warramayo dagaal dhaqaale kama warramayo dagaal military kama warramayo waxaasoo dhan waxaa ka warramaya dagaal afkaareed dagaal ah bini aadamka see loo rabeeya dagaal ah qofka la rabo in lasoo saara waa inuu shaksiyadee yeeshaa personalityga qofka waa inuu maxay noqdaa dabeetana waxaa jira maanta waxa la yidhahdo globalization alcawlama maxaa la cawlamaynaya ma technologyga cawlamo laga dhigaya cid technologyna baraysa miyaad aragta may cidina inooma keento technology iyo cilmi iyo aqoon sare iyo maxaa laynoo keenaa capacity building imisaa maqasheen seminaaro hargeysa ka socdo la yidhaha capacity building capacityga lagu dhisaya waa noocma waa afkaar waa lagu midabaynaya rijigaa kugu socda sibqat allaahigii baa kolba in lagaa rajiyeynaya ilaa aad sibqat alyahuudi wa nasaara ay yeelato ilaa aad sibqa iyaga ay yeelato waxa dunidu maanta dagaal ka socda ee democracy leh ee human rights leh ee iminka waxa la leeyahay xuquuqda bini aadamka waa kan xuquuqda bini aadamka halkay marayso ma taqaanaa raggu waa inuu xaqa naagnimada yeeshaa guys ragga la dumareeyey waa inay xaqooda helaan soo dunida kamaad maqal dumarku waa inay xaqa ragnimada yeeshaan gabadh ninowday oo ragga dhex boodaysa oo wax walba waa human rightska la wado
يعني adiga marka hore xuquuq baa lagu sheegayaa xuquuq insaaniye laakiin xuquuqda afkaarta ku salaysan tahay ba mushkilada miyeen xuquuqda bini aadamka diidanay maya xuquuq bini aadam ma diidi kartid ilaahay ba quraanku leeyahay wala qad karramna bani aadama bini aadamku waa mukram ilaahay ba karaamo siiyay ilaahay ba xuquuq siiyay laakiin xuquuqda xaqeel miisaankeedu saaran yahay kitaabkee lagu eegaya waxa xaq ah iyo waxaan xaq ahayn isagu wuxuu ku leeyahay in qawm Luut la noqda oo ragga la dumareeya oo ninka la guursan kara waa xaq u leeyahay in gabadha la nimeeyo oo ay nin noqoto oo ay xagga raganimada u boodo oo ilmaha tuurto waa xaq ay leedahay idan ninka waxa laga raadinaya xaq ah inuu caruur dhalo gabadhana waxa laga raadinaya xaq ah inay caruurta iska joojiso aanay waxba dhalin waa philosophy dunidu bay isku haysaa afkaar iyo aqaayid baa la isku hayaa dhaqamo iyo diimaan la isku hayaa aragti baa la isku hayaa هذه إنسانك بطبعه إنسانك طبيعة إلهي وأبوره حما ما أقبله إلهي من القرآن كله في سورة التين أخرية ولقد خلقنا الإنسان سورة التين شيء ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بإلهي إنسان كأحسن تقويم بانو أبوه راشنال يسوى صاحب عقلية وحا معقول كون أقبلي كراه laakiin marka la luminayo waxa looga dhigaa wax aqliya shaad kale way la huwiya si uu qofku qaadan karo de aadamba ibliis intuu yimi ma oran jannadan ka saaraya muxuu ku yiri shajaratul khuld wa mulk la yabla baan ku tusaya buu yiri miyuu ku yiri aadanow jannada inaad ka soo baxdaa baan rabaayo ku fasahaadiyo aadama yeeli lahaa way kulat gacan kale wada moo yeelay laakiin wax kale uu dhoodhooba oo shajaratul khuld iyo mulk la yabla iyo wax kale ku tusaya buu ku yiri insaanka إنسان الله ما يدهده حولو لكن حول النمط الله أما أنا ما أعكر الله بحياه وإن وحيلا إباحية ده إن الحيوان كوا كاته إن أدقيد يلان وحكو حدا إن أنا تشرينات صح ولا وفكرته وهو حليته لكن إنسان كسيدا الله قمت لما وحل له حرية رايتس كذا يد استعمال يسا حرية هذا موعد كلام ربطين حرية هذا التغيير يسو وين الحرية خضرة حرية ضعيك حرية ضعيك حرية سيدا لوجو ده واحد لقى يا محيل لوجو ناقص حريتها هذه هتربطان ناقنقو وحرية أركت هذا مثل ليس إذا أيها الأخوة عالمكم أنت وحكوا جرا محي لالن لوجو جرو أيضا تتجي شخصيات بني آدمكم حون قنية سيدا أوجد dhalinyarada muslimiinta dambe waxa ka muuqda madaahir dhacf shakhsiya muuqaalo muujinaya inay shakhsiyadoodi liidato muuqaalo muujinaya mu'taqadkooda iyo afkaartooda iyo sulugooda inay soo khilaafayaan waa muuqaalo naxdin la runtii laakiin waa muuqaalo aanay u fiirsanin markaad aragto shabaab muslimiina oo ku faanaya afkaar cid kale leedahay dhaqamo cid kale leedahay hidde cid kale leedahay maalmo farxadeed oo cid kale leedahay u dabaaldegaya ku faraxsan waa maxay waa qof dawabaan lagu sameeyay waa la maydhay waa maskhi waa qofka shakhsiyadiisa iyo maydhmaysa laakiin waxay u maydhatay isagoo aan ogeyn war ninka waalan ku dayacidina kuma odhanin laakiin mid waalan oo kale oo xashiisha dacbo heesaa la keenay oo codkiisa malaayiin ku dhaliya laakiin raama leh oo hayliya xidhan oo maradu go'an tahay oo bira xidhan oo dhagaa dalooshaday oo timaa badh xiiray markaasaa lagu yidhi ha huwa shakhsiya laguma odhan waa nin waalan ku daya waxa lagu yidhi star waa xidigaha dunida xidig ka mid ah Bob Marley baa la yidhaha waa xidig Bob Marley miyaad nin waalan u taqaaneen ما هو حدك ده يسوي إلا وحليه يا استامه إلا أمانة يونا إذا أيها الإخوة وحنت المامة يا وحويان إنها شخصية ديالتان شخصية قوية personality إنها تقف نقطة ضمير له ضدني مله قفأة معتقد كيس كفانية ضدني مدي سكفانية وين كفان جلسة إنها تقف مسلم والصومالية قف مسلم والصومالية إنها طاي وين يوحلو قفانا كون نقطة wax laga faano waa inaanay ku noqonin inaad muslimnimadaada qarsato ama soomaalinimadaada qarsato ama dadnimadaada qarsato waa wax liidinimo ah waa inaad waxaad ku faanaysaa uu noqdo inaad qof muslim oo Soomaaliyeed tahay taasi waxay keensanaysaa marka
inaad la mid noqonin kuwuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam mararka dacfi iimaanigii uu dhaco ee dadka iimaankooda uu daciifo waxa ku dhaca waxyaabo badan oo isbeddela ah gabadhii muslimadda ahayd oo isa sii beddelaysa inankii muslimka oo isa sii beddelaya dhaqamadiiyo la beddelayo waxaasoo dhammi waxay la mid yihiin tuu nebigu leeyahy latatabicanna sunana man kaana qablakum waxaad raaci doontaan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam dhaqamadii kuwii idinka horreeyey taako taako iyo dhudhundhudhun baa u raaci doontaan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xataa hadday galaan buu nebigu yihi god masalugalay masalugalayda sooma taqaanin sacagalayda tayaryar baa dabka la yidhaahdaa tan waaweyn waral baa la yidhahdaa waddankeena degan god masalugalay hadday galaan buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam latabactumuuhum waa ka dabagelaysaan mithaalkani waxa uu tilmaamayaa shayguu tilmaamayaa waa maxay haddaad si fiican ugu fiirsato godka masalugalay waa meel madow oo yaroo qurhmuun soo maaha meel la gala miyay tahy meel wixii gala laga daba gala miyay tahy yani wuxuu tilmaamayaa indhala-aan baad waxaa u qaadanaysaa waxaad qaadanaysaa adigoo aan soo marin maxay almisfaat alcaqliya caqligu waa shaandho afkaarta iyo aragtida iyo waxa lagu reebaya lagu shaandheeya muctaqadku waa shaandho waxa lagu sheegaya lagu shaandheeya wixii lagu sheegaba lama qaato wixii TV ka soo baxay iyo wixii jaacad lagu dhigay iyo wixii la sheego dhan lama cabo ee waa la iska safeeyaa marka la safeeyo maxaa soo baxaya wax anfaca iyo waxaan anfacin waa la iska daadiyaadhay shaandhada waxa loo samaystay maxay markaad wax hufaysa maxaa wax loo hufaa waxa aad sileeday markaa ku anfici maayo inaad kaga reebto haddaad shaandhada marin weydo wixii ku soo mara maxaa soo baxaya inaad indhala-aan u liqdo moodo wixii ka yimi war ninka xidigaha tegey haddaad tidhaahda wixii ka yimi dee wax lagu liibaanayu ka war ninka xidigaha tegey dhaqankiisa kale haddaan kaaga warrabno ninka xidigaha tegey nin baa islaamay markaasay yidhaahdeen markaad muslimka noqotay waa reer galbeedka markaad islaamtay waxyaabay ugu fiicnaa aad aragta maxaa ka mid ah wuxuu yihi wax kaloo dhan ba haddaanan helin qurhmuunkaygii baan ka nabad galay buu yidhi ma maqashay qurhmuunkiisuu ka nabad galay yani galbeedka dee saxrada la yskama maydho waraaq bay dabada ku dhadhejistaan walidaalika habeenkii markuu go-a huwado unbu isu soo uraa markaa wuxuu leeyahy markii aan islaamay meeshii nadiifiyey urtaydii baaban ka nabad galay buu yidhi insaankaa qiyaas yani adigu waxaanad moodaynin waxaa maalin dhaweed lai sheegaya insaan talyaaniyo wuxuu ku islaamay dobilu ahaa dabeetana wiil algeria ama north africa ka yimi muslimiinta abaa dharkiisa u keensada dharkiisa kiisa sariya kiisa hooseba wuu u geeyaa markaa wuxuunba arkaa un dee nigis aan xaar lahaynba maydhay ninkii buu u yeedhay wuxuu yidhi niyow adigu su-aal ma ku weydiin karaa haa buu yidhi niyo waxaan ku weydiinayaa buu yidhi adiga maradaada sare iyo maradaada hoose waa isku mida maxaad samaysaa maradaada sare iyo maradaada hoose waa isku nooce maxaad samaysaa markaasuu warramay inuu islaam yahay oo tahaaro qaato caynkano yani gaalkani wuxuu ogyahay marada kaste ee loo keenay karaa inay xaar leedahay axad dakatir soomaaliyiin nin doctor oo geology doctorku ah ayaan berlin university kula kulmay markaasaa laga sheekeeyey dhaqanka nimankan wuxuu yihi waxyaabaha aad la yaabaysa wax ka mid ah akbar buu yidhi professorkii meesha ugu laga dambeeyey ayaan israacnay buu yidhi xeebun buu tago dharkuu la baxay oo wuxuu rabay inuu dabaasho mise waraaqo saxaradii ku taallaa dabada ugu dhegdhegsan buu yidhi ninku maysii galay waa professorkii meesha laga idan ninka dayaxa tegey xaarka iskama maydho hays odhanin marka hadduu dayaxa tegey kullu shay waa tamaam waxaan uga jeedaa markaa waa maxay waxaad u baahan tahay misfaat caqliya inaad mariso misfaat diiniya inaad mariso dhaqamada westranka kaaga imanaya waxa kan ayuha alikhwa shaksiyada qofka muslimka ee dhabta ah waxa soo saaray waa caqiidada waa caqiidada rabbaaniga ee uu qofku garanayo xaggu u socdo wuxuu u nool yahay aakhira inay ka dambayso dariiqa la marayo uu garanayo laakiin qofkaan muslimka ahayna ma garanayo waa mutaxayir wuxuu u noolye garan maayo wuxuu dunida ka qabanaya garan maayo malhaabuu ku jiraa inuu isdawakhiyo markaa maadaama qofku garanayo wuxuu u nool yahay waa inuu ismashquuliyaa
boodbood cayaar khamri cab xashad cab bale kale cab iswaal waktiga lumi haddaad adna waktiga lumiga qaadato ka war adoo muslima shaksiyadda muslimka maha shaksiyad waktiga lumisa haddaad adna qaadato waktiga saan u lumiya baaniyo waktigii baan ugu tira bato waxaan uu ku luminaba garaweyn qaadka cun markaa yani wuxuu qayalayaan waktiga lumiyo waxaan leenahay waxaynu u baahanay ilaahay wuxuu leeyahy walaqad arsalna ilaahay subxaana wa tacala wuxuu tilmaamay in rusul soo diray maxaa lagu soo diray rususha bilbayinaat waanzalnaa macahum alkitaaba wاlmiisaan rusul baa soo diray buu ilahay leeyahy subxana wa tacaala rususha waxaa la soo raaciyey bayinaadkoodii daliiladoodii caddaynaya inay xagga rabbi ka yimaadeen mucjizaad iyo bayinaad bay wataan sheegaya inay rusul yihiin ergo ilaahay soo diray inay yihiin maxaa inaga laynoogu soo dhiibay marka alkitaabu wاlmiisaan baa ilahay yidhi kitaab baan idinku soo dhiibay iyo miisaan yani kitaabku miisaanku ka tirsan yihi miisaanku kitaabku ku jira waxaa laynoogu soo dhiibay sifaadkaasi mawaasiinta aynu noloshoo dhan ku qiimaynayno aynu ku kala garanayno maxaa saxa maxaa qaldan maxaa la qaadan karaa maxaan la qaadan karin ma aha qofka muslimka ahi dimuqraadiyad baan qaadanay kan baan qaadanay waxaan baan qaadanay waxaan wixiisii ahayn inuu ku faano maaha waxay ahayd wixiisa inuu tatwiirsado oo horu mariyo hadday naqsaani ku jirto oo wixiisa ku faano walidalik ayaa jiilkan iyo jiil صaxaaba waxyaaba ugu waaweyna udhexeeya waxaa ka mid ah madaahirta shabaabkeena dacfiga haysta iyo saxaabadii maxaa udhexeeya waxaa udhexeeya kelima waaxida kelmadii rabciya ibnu caamir baa udhexeeya iyagu waxay soo arkayeen inay yihiin usaatudadii professorskii aqoon-yahanadii dunida loo soo diray inay yihiin waayo ilaahay dunida wuxuu usoo diray rusul soo maaha rususha maxaa loo soo diray ma inay warshado sameeyaan iyo magaalooyin dhisaan baa loo soo diray maya maxaa loo soo diray inay bini aadam dhisaan iyo ma qaalisan in bini aadamka la dhiso iyo in warshad la dhiso bini aadamka warshadda dhisa warshadda waxay ka mid tahay min mantuujaati bini aadam waa wax soo saarka bini aadamkay ka mid tahay laakiin waxa asalkee u baahan in la dhisaa waa maxay waa shaksiyadda qofka bini aadamka ilaahay rususha wuxuu usoo diray markaa looma soo dirin inay dhakhtarraynoo dhisaan iyo inay masaanic sameeyaan iyo inay warshado sameeyaan iyo inay garoonnaynoo sameeyaan looma soo dirin rususha waxaa loo soo diray inay bini aadamka dhisaan dabeetana rusushu bini aadam bay dhiseen bini aadamkiibaa madaniyad iyo xadaarada markaa dhisay bini aadamka iyagu soo saareen ayaa alxadaara alislaamiya iyo aqoon-yahanada iyo waxaan cilmiga ay dunida keeneen muslimiintu bini aadamkay soo saareen bini aadamkaa la dhisay muslimiintu dagaalay la galeen labadii dowladoodii ugu waaweynaa waxaa ka mid ahayd markaa labada dowladood ee waktigaa dunida ugu weyn dowladdii bersia waa iran meeshan iminka la yidhahdo asalkeeda furus dowladdii la odhan jiro dhul ballaadhan ka talisa oo markaana xoog badan dowladda bersia dagaallo kadib markii ay socdeen muddo ayuu ninkii madaxda ahaa waxay damceen war bal nimankan muslimiintaa waxay yihiin aan ogaanayo sidaynu ula hadalle bal wada hadal ma furraa haa bay yidhahdeen muslimiintay farriin u direen waxay idhahdeen cid soo dira bal aan wada hadal leh wada hadal baanu rabnaa cid idinka idinka mida bal dagaalka ka hor aan wada hadallo goob dagaal baa la joogaa waa qaadasiya waa ciidan uu hogaaminayo sacd ibn abi waqaas saxaabiga weynaa la odhan jiray waa ciidamo muslimiina oo casharatu lmubashiriin ay hogaaminayaan waa raggii nebi maxamed dhisay bashar shakhsiyaadku soo saaray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam saddex nin baa midba mar loo diray taarikh ahaan kama warramaya hal ninan kelmadiisa tilmaamaya rabciy ibni caamir nin la yidhaahdaa loo diray rabciy ibni caamir waa nin iska gaaban faras yaroo gaaban oo xagaafa wata muddo dagaal ku soo jiray haylhaylan ilaa nin intaasoo bilood oo sanada dagaal ku soo jiray nin xaraga ka muuqata maaha waran yaroo gaaban iska sita u soo galay faraskiisa isagoo wata waxaa la yidhi fardahana halkaa dhigso hubka dhigo dabeeta boqorrada loolama galo xagga iyaga hubka iyo waxaa wuxuu yidhi boqorka anigu uma imanin isagaa ii yeedhay haddaa ogashiin inaan sayda ugu tagana waan u tagay haddii kalena waan iska noqonaya waa casiiz binafsi laa boqor walaa suldaan buu yaqaanaa ninkaa hawdka ka yimi ee faraskiisa wataa saxaaraa ka soo baxay laa boqor walaa suldaan cid dunida ka sarraysa oo aaminsan yahay ma jirto boqorka kanna waxay idhaahdaan miqdaaru miilin baa loo dhigay kaarbadka cas baa la dhigay de halkan imika soo kaarbad cas ma maqashaan baa madaxtooyada horteeda la dhigay kaarbadka cas baa in waran ku dhaco baa loo dhigi jiray waran marka la tuuro inta waranku ku dhaco ayaa la dhigi jiray khataa'ifta iyo waxa kan
dabeetana sariir weyn oo boqortooyadu leedahay ciidamadii iyo wixii ilaalinayay haylihi wa haylmaanihi buu wataa isla weynidiisii oo dhan buu soo muujinaya ninkanina faraska hayar iyo waranka hayar baa ka dhaco u wataa kadibna waxay yidhaahdeen wuxuu ihi u tago oo isagaa ii yeedhaye haddaa sidayda igu sii daynaysaana waan u tegaya haddii kalena waa iska noqonaya waa loo sheego waxaa la yidhi ninkii caynkaasuu leeyahy soo daaya buu yidhi karbadka cas buu iska soo dul eryaday faraskiisii dabeetana barkin halka taalluu ku xidha uu soo dhaafo wuu yimi isagoo warankiisa sita ninkii wuxuu ku yidhi war maxaa idin soo saaray nimayow haddii meel saxaaro oo engegana ka timaadeen oo gaajo iyo mashkiladeedan haysato aan xoola idiin rara buu leeya naga noqda meeshiinaanu idinku nimcaynaynaaye maxaa idin soo saaray buu leeyahy wuxuu ugu jawaabay wixii uu filayay waxaan ahayn muxuu yidhi allahu ibtacaثana linukhrija man shaءa min cibaadaةi اlcibaadi ilى cibaadaةi اllahi waxdah wa min dayqi اdunya ilى sicatiha wa min jawri اladyaani ilى cadli اlislaam ilaahay baana soo bixiyey buu yihi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas buu dee taagan yihi annaga allahu ibtacaثanaa buu yidhi maxaa idin soo saaray hadduu arrinku yahay ilaahay baa annagana soo saaray buu yidhi waxaana naloo soo saaray dadkan dadka addoomaysta inaanu ka saaro dadku rabbigood ay addoommo u wada noqdaan dadka inaanu xoraynaa baan u nimi buu leeyahy ribciy ibnu caamir aniga muhiimaddaydu waxa weeyaan buu leeyahy inaan insaanka xor ka dhigo xor rabbigii caabuda inaan ka dhigo saasaan u socdaa buu leeyahy oo addoonsigan boqortooyooyinkiin iyo waxaan ku haystaan inaan ka bedelo marka waxaan u imi buu yidhi dadka inaan iscaabudaya inaan kala xoreeyo oo dadku ay rabbigood xor wada noqdaan waxaan kaloo u soo baxnay buu leeyahy inaan adduunka cidhiidhigiisa ka saaro aakhiriya adduun ballaadhkeeda aan geeyo adduunka kee cidhiidhi ku jira labada calaa miqyaasi dunawi haddaad ku eegto ninkan kaarbad casba u yaalla sariirtii boqortooyu haystaa waxaan oo dhan waddan dhan buu ka taliya waa janan waa kaa waa rustam ninkanina faras iyo labadaa hayliye uu xidhan yahay iyo warankaasuu sitaa haddana wuxuu aaminsan yahay wuxuu leeyahay adduunka cidhiidhigiisaan kaa saaraya ninkaaga kan adduunka cidhiidhigiisaan kaa saaraya waxaan kuu saaraya maxay ballaca adduun baan kuu saaraya adduunku waa waxaad ka sawirato ee maaha waxa hortaada yaalla waxa hortaada yaalla waxba ma taraan qofka mu'minka ahi waa haniyu nafs alghina hina nafsi soo nebigu ma odhan calayh isalaatu wasalaam qofkani waa hani sidiisuu u yahay waxoogaagan yar bini aadamku gacanta ku haya waxba uma arko adduunka iyo aakhiraba saacadeedaan ku geynaya buu le wuxuu u arkaa saacadu inay aakhiro iyo janno iyo daarusalaam iyo daarulqaraarka iyo jannaatu naciimka inay aakhiro jirto iyo meesha aan lagu dhimano dhalinyaro lagu yahay inay xaggaa tahay marka meesha ballaceedaan ku geynaya buu leeyahy cidhiidhigeedana waan kaa saaraya waxaan kaloo kaa kaxaynayaa buu leeyahy dulmiga iyo jawrka diimahu ay ku hayaan bini aadamka iyo dhaqamadu waxaan kuu saaraya cadaaladda islaamka anigu warkaasaan wadaa buu leeyahy isagu wuxuu ka fekerayaa dhaqaalaydi si iyo baab kaleu ka fekeraya idan ambiyadu waxay u timi inay shaksiyad sameeyaan bini aadam inay abuuraan diimuhu markaa kama warramaan science ilaahay inooma soo dejin kutub a maxay chemistry iyo biology iyo baabkaasi bini aadamkaa caqli la siiyey chemistry iyo biologyga isagu ka warkeeni kara laakiin waxaa la soo dejiyey rusul soo saarta bini aadamka wax ka dhiga adduunkuna maanta loolankaasuu ku jira walidaalik ayaa waxa uu tilmaamaya nixon ma maqasheen gaalkii la odhan jiray maraykanka ka talin jiray madaxweynihii maraykanka nixon la odhan jiraa buug buu leeyahay la yidhaahdo intahasu lfursa buugu qoray buuggiisa markuu maraykan buu markaa istraatiijiyaad u dejinaya wuxuu leeyahay maraykan ugama cabsanayo buu yidhi darba nawawiya in nuclear weapon caalamka shuuciga ay ku dhuftaan maraykan ugama baqaya buu leeyahy walakinana buu leeyahy waa madaxweynihii maraykanka nakhsha alislaama walxarba alcaqaa'idiya alatii taqdi cala alhuwiya addaatiya lilgarbi buu leeyahy waa bug dhan oo madaxweyne waddan qorayo istraatiijiyaadka waddanka uu ka warramayo waxaan ka cabsi qabnaa buu leeyahy dagaal diimeedka muslimiintu ay wadaan ee dhaqanka iyo identityga reer galbeedka bedelaya buu leeyahy aniga kaas weeyaan buu leeyahy cabsidaydu nuclear weaponka maaha kii hore markuu caynkaa lahaa clinton baa ka dambeeyo hadliyo wuxuu leeyahy america waxay rumaysantahay buu yidhi qiyamkeedu valueskeedu inay bini aadamka oo dhan u suubanto
walidaalika waxa aan dareemaynaa buu leeyahy inay waajibina saaran tahay dadka inaynu isu ekaysiino. clinton wuxuu ka fakerayaa markaa isla weynidiisa dunidu in isaga u ekaato sida maraykanku u fakeray dhaqankiisa iyo caynkaasi ayaa maal iyo xoog iyo istaraatiijiyaba waddanka maraykan ku bixinaya si dunida kale ay ugu ekaato, waayo haddaad u ekaato tabac baad u noqonaysaa. adduunku caynkaasu isku hayaa. jaadi lxaq jaadi lxaq jaadi lxaq soo garan maysaan? sheekh ilazar sheikhii ugu fiicnayd azaree raggii ugu dambeeyo ka mid ahaa, ilaahay u naxariistay. jaadi lxaqna wuxuu yidhi ina albaxha can huwiyaة أخrى lilأma الإسlaamiya khiyaanaة kubraa wa jinaayaة cudmaa buu leeyay. baadigoobka loo baadigoobayo buu leeyay ummadda muslimiinta ah identity iyo huwiye iyo shaksiyad kale waa khiyaano weyn iyo dembi weyn oo ummaddiiyo diintaba laga galay buu yidhi. ilaahay rasuulkiisina wuxuu yidhi buu yidhi xadiid صaxiixu muslima markaa daliishanaya. ilaahay rasuulkiina wuxuu yidhi man gayara minaari اlأrض lacana allahu man gayara minaari اlأrض. ilaahay rasuulkiisuna wuxuu yidhi allah ha nacdalo ka gediya dhulka tilmaamihiisa. waa dadka beerahooda iyo maxaa la yidhaahdaa seesaskooda iyo intooda ku guure un halkii la isku ogaa calaamaddu udhaxaysa ahayd in waaga dambe aad kusoo baryayso isagoo ay xagga kale calaamadii dhigeen ayuu nebi moxamed nacdalaya. dabeetana wuxuu leeyahay rasuulkii nebi moxamed ahaana wuxuu lacnaday dhulka calaamadihiisa cidda gedida ee bal ka waran ummad dhan dadka calaamadahooda raba inay gediyaan. umma islaamiya oo shaksiyad iyo identity iyo dadnimo iyo caqiido iyo diin lahaa. ayuha alaxiba, waxaa laynoo adeegsaday waxaa shaksiyadda liidinaya waxa weeyaan caqiidadeeniyo daciiftay. ceelashii cilmigoo la sumeeyey, yacni wixii cilmiya iyo wax kalaa la isku qasay. jaamacaadka waxa lagu dhigaa ma wada aha cilmi, qayb badan baa ah tadwiibka waxa lagu sameeyo. walidalik bu axad alculamaa hindiya ba wuxuu yidhi fircoon caqli xumadiisii buu yidhi. fircoon buu leeyahay caqli xumadi. fircoon xukum qaatay muxuu aha markii la yidhi boqorka kursigaaga nin yaroo reer banu israa'iil ee kaa turi doona sixaradiisi iyo wixiisi markay u yidhaahdeen xukum buu qaatay reer banu israa'iil inaanay inama dhalin soo ma ahayn. wuxuu yidhi wixii carruur ay dhalaan dila. dabeetana wadaadkani wuxuu leeyahay caqli xumada fircoon buu yidhi bal intuu reer banu israa'iil carruurtooda laynayey muu kulliyada u fura buu yidhi. kuwaasuu baaba dhalaalin lahay oo caqligooda bedeli lahay. yani wuxuu ka dhigayaa kuliyaadku inay yihiin maxay? meel lagu dhalaaliyo cuquusha dhallinyarada. kuliyaadka jaamacaadku waa meel cilmiga lagu barto, isla markaana waa meel maqaarka la iskaga sibo harag cad la isugu yeelo. saa ma u fahmi karaysaa? yacni waa tasmiim aabaari اlmacrifa. waxaa la sumeeyey ceelkii biyaha ee cilmiga laga dhuuran lahaa ayaa la sumeeyey. waa sayطarada caalamiga ee ثaqaafadan ee t v leh, telefishon leh, maxaa la yidhaha shareemo leh, ee warbaahin leh, jaraa'id leh, afkaar la faafinayo. waa afafkan kale ee la faafinayo. afgaaleedkana maanta laga dhigay. maanta hargeysa ninka joogaa hadduu dhowr midho ingiriisiya sheegi kari waayo u arkaya inuu dadka ka dambeeyo. wadaad iyo wabiinba isku dar laga dhigay. luqada carbeedna laga dhigay luqadii diinta ee rabbi uu kitaabkiisa kusoo dejiyeyna wax iska carab baa ku hadasha dhagacs bahalay leedahay. waa khuraafaadkan la isu soodayo ummad walba la isku dayay in qowmiyad dambe loo yeelayo huwiye kale. dhulkaa la qodaa. maxaa laga qodaa? in awowyadaadii hore ay caabudi jirtay wax lagu soo saaray iyo meelaha la qodqodoo la yidhaha dhaqankiini iyo hidiini waa kan. masaarida fircawna iyo waxbaa loo qodaa. turkiga tawraaniyiin iyo waxbaa loo qodaa. ciraaq masobotamiin iyo wax sham finiqiyiinta iyo waxbaa loo qodaa. kal jarar baa la leeyahay aahaar baa la qodaya. aahaartoo dham way diinta lagaaga saaro. waa in lagu yidhaha abtirsiintaadii hore halkay gashaa. iminka innaga baargaal iyo meelahan baa laynoo qodaa soo maaha. abtirsiin hore laynoo raadinayaa. awoowiyadii hore meesha degi jiray waxay caabudi jireen. waxaa la mida tamsiikha laynagu wado istiqطaab اlmarأة almuslima. gabadhan muslimadee lasii wado una xaggan loo wado
ilaa deemka waa maqlaysa dastuuradan Soomaaliya loo sameeyo waxa ka koota dumarka hal la siiyo boqolkiiba 30 dastuuradooda waxay ugu qori waayeen boqolkiiba 30 dumarka hal la siiyo haday wuxuu wax wanaagsan tahay Mareykanku muxuu qoran waayay dastuurkiisa boqolkiiba 30 hal la siiyo tay wax wanaagsan tahay muxuu u qoran waayay Ingiriisku boqolkiiba 30 hal la siiyo dumarka maxaa Faransiisku u siin waayay duwal Europa al-Gharbiya maxaa loogu qori waayay dasaatiirtooda 30% hal la siiyo kuma jirto si loo lantaa way soo gaadhaa laakiin kuma jirto maxaa keenay ummad in la yiraahdo ilaa intaasi waa inay dumar roqtaa maxaa capacity-gan dumarka la xaqooda la dumay dumarka caynkan la yeelay dumarka caynkan la yeelay oo rag madluumiin meesha ma joogaan miya ama masaakiin ama dad baahan ama caynkan taa macnaheedu ma aha in islaamku leeyahay dumarka hal la dulmiyo islaamka ilaahay baa xuquuqda bixiya raguna ma bixiyo dumarkuna ma bixiya hadaynu ilaahay raacno ilaahay baa cid walba xaqeeda siiya idan dumarna ma soo xadgudbaya ragna ma xadgudbi karo waa xuquuq thaabita oo rabbu samaawaati wal ardi uu bixiyo waa muslimiinta oo lagu mashquuliyo tarfiih hada ka caalam islaami wixii huwiyada dhis ilahana waa laga tagaya si loo qabto olimbiyaadka dunida iyo caalamkeeda iyo garoomo kubadeed iyo waxa kan iyo madaahir baa la dhisaya wala wadan warshad yaro hub lagu sameeysta dhisay laakiin wadale waliba 200 oo garoon oo kubadda cagta lagu ciyaaro milyan qof qaada buu sameeynaya madaahirta waxa kamida lumitaanka keensaday in diinta la inoogu kala qaybiyo lub iyo qushuur in lagu yiraahdo waxna waa asalka diinta waxna waa iska sunna iyo manduub iyo waa qushuurtii sare waa dawaahirta sare waxaasi dib ma lehe asalka xajiso muslim mar hadaatay hadaad madaxa yara xirtay hadaad suurada daba jeexaqaata waa muslimkii u baatay waa nin ragaad wali tahay marka waxna waxa laga dhigay inay madaahir iska liidata tahay waxna waxa laga dhigay inay tahay maxay lub war diintu lub iyo qushuur ma kale diintu waa diin xaq Allah ka timi qofka mu'minka ah inuu iyada dhamaanteed ku faano shakhsiyada muslimkii marka koow ah shakhsiya iimaan iyo itmiinaan leh alladina aamanu wa lam yalbisu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum al-amnu wa hum muhtadun waa shakhsiyo nolosha raali ka ah oo sugan oo ilaahay jidkiisa raali ka ah haday waxaysatay hadaanay waxaysanba oo aan qalq iyo idraab iyo xayraan iyo wareertoona ku jirin radiyallahu anhum wa radu anhu haye dalika liman khashiya rabbah cid kasto ilaahay ka cabsatana waa wilaada arrinka kan rida ajaba li amri almu'min bu nabigu tilmaamay arrinta mu'minka yaa bayleedo haduu waxaystay hadaan waxaysan mar walba waa qof faraxsan oo degan shakhsiyada muslimka marka waa shakhsiyad thaabit oo aan tagayir ku dhicin waa shakhsiyad hanuunsan oo ilaahay jidkiisa haysata qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin yahdi bihi allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim simaadka iyo calaamaadka ilaahay shakhsiyada islaamiga in badan kama waramin muqawamaadka ilaahayna in badan kama waramin laakiin waxaan warkayga u badiyay inaan tilmaamo inay tahay maxallul ma'raka bayna ad-duwal wal umam inay tahay shakhsiyaadka sida loo qaalibkeeda loo sameeyo dadkan idinka u aqoonyahana marka arday jaamacadeed baati jaamacad ku jira waxbarasho wada mustaqbalka la rajaynayo inay dadkii hagi lahaa ay ku jiraan idan waxa aadka u muhiimkii waxa weeyaan in shakhsiyadiina ilaashataan iyo identity-giina iyo waxa ku faanaysaan iyo dadnimadiina iyo islaamnimadiina inaanay noqonin waxa ka faantaan waxa baranaysaana ina misfaadkaasi aqliga ee diiniga amarisaan waxa baranaysaana ina huftaan oo shaandhada islaamku waa shaandho loogu talagalay inaad waa miisaan khabiidka iyo tayyibka lagu kala sooco khabiidka iyo tayyibka waa miisaan lagu kala sooco haddaanad miisaanka ba haysan ka waran wax ma kala sooci karaysa ninkan shaandha haysan muxuu kala sooci khabta ashwa waa inuu ugu socdaade gudcur waa inaad guddaa markaa idan islaamnimadiina nabarta baad leeyahay sababta u baranaysa waxa weeyaan adigoo takhasuskaaga wata hadduu siyaasadiye hadduu iqtisaadiye hadduu biology hadduu dhakhtarnimo hadduu chemistry adoo takhasuskaaga wata islaamnimadaada baro waayo islaamnimadaada waxay noqonaysaa waa miisaankii
ama misfaadkii aad ku kala soocaysay nolosha dhammaanteedba waxaad baranayso iyo waxaad la kulmayso iyo waxaad maqlayso iyo waxa laguu sheegayaba waa miisaanka aad ku kala soocaysay ilaahayna waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala idinkiiyo annagaba inuu xaqayna wada waafajiyo inuu naga dhigo dad islaamkooda ku toosnaada siraadka mustaqiimka ah kuwa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku toosiyo kuwa kala garta xaq iyo baatil allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين